sifaacyinkee ayuu buugga dhammaan mulla of somalilan ee laga qoray taariikhdii daraawiishta iyo sayid maxamed cabdilla xasan ka bixiyey dhulka loo yaqaano bahgiri country ama dhulka bahgiridu ay degto. dhulka bahgirida kaasoo ka bilaabanaya koonfur galbeed ee walwaal ilaa webi shabeelle wuxuu ahaa midinkaaran ama habaaran kaasooy degaan qabaa'ilka ogaadeen ee xagjirka, waxayna hooy u ahayd dadka sharciga jabiya ee mucaaradka ee aan qanacsanayn ee ka imaanaya hareeraha degaanadaas. dhulkan uusan sharciga ka jirin waxay hooy u ahayd boqolaal daraawiisha oo uu hogaaminayo wadaadka walaalkiis khaliif. daraawiishta khaliif waxay fadhiday laga bilaabo walwaal, wardheer ilaa qoraxey, halkaasoy ka dhisteen qalcado xoog badan. qalcadahaas waxay dhisteen ama deganaayeen ilaa 1903 waxayna ku amartaagleyn jireen ama argagixin jireen qabaa'ilada ogaadeen ee Soomaalida, kuwaasoo isugu haleyn jireen dambiyada iyo dagaalada ay galayaan inay garab kaga helaan. daraawiishta khaliif waxay halkaa joogeen tan iyo aasaaskii daraawiish, wuxuuna wadaadku ka heli jiray caawimaada ugu weyn. waxaa kaloo halkaas laga soo gudbin jiray hubka iyo rasaasta laga keeno Abyssinia. qalcadahaas waxay kaloo ahaayeen saldhigyo dhexdhexaada oo haddii daraawiishta British Somaliland ka howlgalaysa ay dib u gurasho ku samayn karaan, waa haddii ay u baahdaan. way adagtahay in la qiyaasa meel gabaad u ahayd dadka cadaaladda ka dhuunta ama fugitive-ka waxa luqadda Ingiriiska loo yaqaan.